munaasabad ballaaran ku qalajibinaya 20 arday oo ka baxay maxadka barashada luqadaha iyo saxaafadda ee Today ayaa xalay lagu qabtay hotelniyo Burco magaalada Burco munaasabadana habka iyo hanaankii wasiir sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo Salaadiin wax garad cuqaal haween waalidiin iyo marti sharaf aad tiro badan waxa gooreynta halkaas ka warbixiyay hanaanka waxbarashada dugsiga Today maamulaha dugsigaasi Cabdikariin Maxamed ugu talagalnay inaanu aad uga dhisno xagga luqadda mudane gudoomiye dugsiga wuxuu furnaa laga bilaabo 2011 bishii tobnaad ilaa iyo imika oo ay dufcadda afraad ka qalin jabinayso waxaan ardayda si hagar la'aan aan ugu barnaa luqadaha Soomaaliga Carabiga Ingiriisiga iyo wixii kale awoodeeda oo aan waxba kala harin sidaan hore u aragnay ardayda dugsiga ka baxday waxay kaalmo hore ka galeen imtixaanaadka dugsiyada ay caadiga ah u dhigtaan ardayda imka qalin jabinaysa tiradoodu waa 20 arday waxa weeyaan 17 hablood iyo 3 wiil waxay ka kala baxayaan luqadda Ingiriisiga iyo kulliyadda saxaafadda oo 4 arday oo hablaahi ay ka baxayaan waxay dhiganayeen muddo ku dhow 2 sano luqadda Ingiriisiga halka saxaafadda ay dhiganayeen muddo 8 bilood ardayda waxaan naga galay dadaal aad u xoog badan anagoo taa kula dibadda aanan helaynin haddana waxaan anagu inta badan aan xoog saaraynay saano ardayda yar ee magaalada joogta ay ula tartami lahaayeen magaalooyinka horumaray waxa iyaguna munaasabadaasi halkaas hadalka iska daba qaatay Suldaan Axmed Xasan Jaamac Bakar Caaqil Saciid maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Bashiir Secretary maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim maamulka xigeenka dugsiga Jasiira iyo sarkaal sare oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer ayaa si wada jir ah u bogaadiyay ardaydan ka qalin jabisay dugsiga Today waxay la tahay in aqoontu ay tahay siiba luqaduhu furaha cilmiga inay tahay inaan cid waliba og tahay haddii magaranaysaa luqadda carabiga iyo luqadda ingiriisiga iyo aad luqadaha kaleba barataan waxa qofku ogaanayaa inuu macaanka wuxuu dhadhaminayaa macaanka aqoonta wuxuu raadinayaa cilmigii wuu ku sii durkayaa salaan farxad weyn bay tahay inaan idinkala qayb noqdo munaasabadiinnan qaaliga ah oo dugsiga iyo ardayda qalinka jabinaysa khaasatan 20 arday ee maanta qalin jabinaya sagootinta ardayda quruxda badan ee qiimaha iyo qaayaha leh ee caawa halka kan loogu xafladaynayo tirada la sheegay waa ilaa 20 arday oo hablayeena ma isugu jira waxaanu idin leenahay dhammaantiin haddaanu nahay wasaaraddii waxbarashada ee gobolka Togdheer anigoo magacii wasaaradda ku hadlaya dhammaantiin waxaan idin leeyahay naga guddooma hambaliyo ugu dambeyntii waxa halkaas soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Ismaaciil Qabo waxaanu ardaydaasi ku dhiirin galiyay inay si wada hankooda waxbarasho sharaf bay tahay inaan idin kala qayb galo xafladan waxaana aad ii farxad gelinayaa in qalin jabintan 20 qof oo 17 hablayiin 3 wiilaliin taa lafteeduna waxay noqonaysaa arrin signal u noqonaysa in Togdheer ama magaalada Burco inay u soo jeedo inay wax barato haddii hooyaad wax barto ummadii oo dhan baad wax bartay halka 17 hablood wax ka baranayaan ay waliba qalin jabiyeen ee 3 wiil oo kaliya ay wax ka baranayaan waxa soo ifaya oo arkaysa inay dad educated ka soo bixi doonaan gobolka taasina aad bay farxad gelinaysaa gabagabeyna waxa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii ka qalin jabisay iyo macallimiintii ku tabacday ardaydani oo lagu maamusay abaalmarino kala duwan waa Koronto Space Channel Burco.